mogtahay inay kuwan yihiin kalluunada adduunka ugu qaalisan waxayna joogaan malaayiin dollar haddii aad heshana waxaad noqon doontaa qof taajira. 1 bluefin tuna boqorka kalluunada qaaliga. bluefin tuna waa kalluun aad u weyn oo gaari kara ilaa 3 mitir oo dharar ahaana iyo miisaankiisa oo ka badan 600 kg. hilibkiisu waa mid casaana aadna u jilicsan taasoo ka dhigaysa mid aad looga jecel yahay suuqyada Japan alaaba. sidoo kale waxaa laga helaa badaha Mediterranean-ka, Atlantic-ga iyo Pacific Ocean-ka waxaana si gaar ah loogu adeegsadaa cuntooyinka caanka sida sushi-da. wuxuuna qiimo ahaan joogaa lacag dhan $3 milyan halkii xabee kalluunihi. 2 blue marlin kalluunka ugu wanaagsan lagu tartamo. kalluunka waxaa loo yaqaanaa magaciisa blue marlin waa kalluun badeed aad u weyn. wuxuu leeyahay san aad u soo dheer oo u eg seef. waxaa lagu yaqaanaa awoodda iyo xawaaraha sare ee uu leeyahay iyadoo lagu tartamo qabashadiisa qofkii qabtaana uu ku guulaysto abaalmarin. waxaa laga helaa badaha kulaylaha sida Caribbean-ka iyo Pacific Ocean-ka wuxuuna qiimo ahaan joogaa lacag dhan $700,000 ilaa iyo $700,000 halkii xabo ee kalluunkanahi. 3 Balanthinium arona waa kalluun laga helo biyaha macaan waana mid dhif iyo naadir ah. badanaa waxaa laga helaa qaaradda Asia. wuxuu leeyahay midab cad oo dhalaalayo dabiiciya. wadamada waxaa laga helaa sida Shiinaha, Singapore, Malaysia iyo Japan. waxaana la aaminsan yahay inuu keeno nasiibka, maalka iyo barakada. dadka maalqabeenka ah ayaa ku iibsaday quruxdiisa, sumcadiisa iyo rumaynta inuu yahay kalluunka nasiibka. dhifnimadiisa iyo aaminaada dhaqameed ayaa ka dhigtay mid ka mid ah kalluunada ugu qaalisan adduunka aynu ku noolnahay maanta. wuxuuna qiimo ahaan joogaa lacag dhan $400,000 ilaa $500,000 halkii xabo ee kalluunkanahi. haddaba daawade, adiga su'aal haddii aan ku weydiiyo, kalluumadan hore ma u aragtay se ma ogeyd inay leeyihiin qiimaha inta leeg? qaybta commentiga hoose iigu sheeg. ha iloobin inaad follow noo saarto YouTube-ka iyo Facebook-ga profile-ka saaranna aad subscribe dhahdo.